fiirso oo ka faa'iideyso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka ka fikraduhu soo bandhigayo waa midan wax fogeynin waa midan wax ficleyn waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ifiirsadayaal ijeedayaal idaymodayaal eegayaal idhehdayaal idhugtayaal idaymodayaal ifiiriyayaal baardayaal lugyaal shufeeyayaal aabbayaal hooyayaal abbuwayaal abbaayayaal abtiyaal aayayaal adeeryaal eedayaal awoowayaal ayeeyana ma kala heraanda awoo lof baa la isku yahay wallahi abshaxanyaal abuulanyaal dirisyaal mas-uuliyiinyaal ilaa muluqyaal madaxweyneyaal halaho madaxweynaan qabnaa halahoona hadday soo socdaan amaana allah ra-iisul wasaare halkoole waaye guddoomiye baarlamaanyaal buunsha camal ay u badan yihiin inkane culamaa udiinyaal maclimiin dugsileeyaal maclimiin iskuul yaal ardaydood yaal ganacsatayaal asxaab yaal dalka joogayaal dibadda joogayaal tuula joogayaal degma joogayaal ilaa kii oo la jirayaal kii maksesing geelo gumbaco lugtaara jis kale waa ku farxaa foolalkiine iyo fahmadiiniye foormada ood u fadhiisatiine waktigan oo kala waani insha allahu aninii fadhiisahaa waktigan oo kala waaso soo fadhiisahaa faaliyahaan soo farjihaaye yaa aruuriyaa markaas idin kale soo aruuriyaysiin fiirsadayaal very nice yaal anfaree wixii bafulo waa soo hiha idin kale ku darsada dadka qaar waxay dhahaan okyaalaha maxaa u gashataa camoola maa tahay ajakis camoola mi hal ilmaa ka wareegsan daaf maa haya kuwa waxay isoo qoreen camoola maa tahay camoola alla idinka dhigdha idinka camoola ma ihi laakiin waa iska jeclahay waa hobbigayga cawadii xataa waa ku jiiftaa marmar marka kusoo dhawaada camoola inaan ahayn waa ijeediin lama indha waa weyn oo waxaan qabaa oo weliba oo wallaahi qurux badan iga cayuumina daaf kusoo dhawaada qodobka koowaad maamulka gobolka banaadir ayaa gebi ahaanba baaba'shay sida warka uu qoraya astaantii taariikhda soomaaliya kadib markii uu dumiyey masaajidkii 4 rukun oo 70,000 miyaa halahaas camal dhisnaay habkii oo u dhisnaay quruxdii oo u dhisnaay wuxuu ku yaalay kaartoliinka oo meelaha faras magaalada muqdisho meelaha caanka ku ah kaartoliinka xataa waa ku yaalay marka dhismihii hore u dumiyey ma la rabin inuu dumiyo waxaa la rabay meesha mar hadday meel taariikhi ee ay tahay in meeshii ay raaraacaan lela rabay mindhaarada dhac ay raaraacaan dhulkaa la dhigi asigoo dib u habeen ku sameeyey runtii meelaha taariikhda ee lama jibiyo dib u habeen waa lagu sameeyaa laakiin asoo taagan le lagu suubiyaa asoo joogo geel joogga laga qalooy camalaa la rabaa okay dib u habeen ayuu ku sameeyey culummada taariikhda soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay arrintaas ama indheer garadka waxgaradka taariikh yaqaanka ayaa ka tacsiyeeyey arrinkaas gobolkana wuxuu sameeyaa laay xaflad oo ku maamuusayo ama oo kusoo dhaweynayo furitaanka masaajidka oo la cusbooneysiiyey dadna waa ka tacsiyeeyeen indheer garadka dadkii horo
magaalada joogi ee taariikhda ku lahaayeen ama taariikhda badan soo joogi waa ka tacsiyeeyeen masaajidkaas astaanta iyo taariikhda ummadda u lahay oo la dumiyey macnaha 70 sano ka hor camal 70 iyo 73 u aalay hadda koo cusub waa dhisi sanadkii koowaad la ziraa laga wadaa 70 sano dib loo dhigi qodobka lamaad iyo eegayaal aqalka sare ayaa maamul goboleedyada soo dhiseen maamul goboleedyaday soo dhiseenaa lagu dhahay aqalka sare iyadoo maamul walba oo soo dirsaday nin indha gaduudi haayo xariif dadka waabi haayo maamul walba halkooda soo dirsaday oo indha gaduudi haayo waa iska soo dhex saarayaan kule kan ugu khatarsan abo indha gaduudyadaa la soo saari nin walba oo khudbehaayo waxa uu sheegaa marka in maamulkiisa lagu xadgudbi karin uuna difaacayo indha gaduudina wallaahi waxaan leeyahay maamulkayga ciddii mala maamul walba hal xariifa soo xuli oo laga cabsahaayo indhaha waxaa leedahay bisbaas maa loogu sheegi bisbaas waa qodobka labaad ee faaliyaha qaranka cidna kuma foorarahee fartayaal isku fiiqin ileen maamul goboleedyadii dhan absaas naqdeen ba halqafaa dadka waabiha waa qodobka labaad ee faaliyaha hee qaranka waaye qodobka saddexaad eegayaal iyadoo siyaasadda ay kacsan tahay waxaa soo kordhaya cudurrada dhimirka ee dadka ku dhaca qaarkood waxaaba keenaa isla hadalka xagga siyaasadda oo qof walbo waxuu ku mashquulsan yahay koo waxaas ku mashquulsan yahay aqalka sare koo waxaas ku mashquulsan yahay aqalka dhexe koo waxaas ku mashquulsan yahay aqalka hoose koona waxaas ku mashquulsan yahay saddexdood isku dumi lahayo faaliyaha qaranka ayaa arrintaas daraaddeeda wuxuu soo booqday cusbitaalka cosoble hospital doctor aadan ayaan booqasho ugu tagnay faaliyaha qaranka ayaa ugu tagay kuwaas oo aan waxaas hayaa doctor aadan dad aad iyo aad u xanuunsan oo xagga dhimirka loogu jiro dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah dumarow hayaa cunto ku filan ma haysto musqulo ma haysto hal musqul way safaa loo galaa dadkan maskaxda ay ka waxaysan yihiin marmar musqusha la isku feeraa hal musqul leh way daawo u baahan yahay cid ima maqnow yiri doctorka ceelna ima qodna dawladda Soomaaliyeed igama war hayso hay'ad haddii la yiraahdo igama war hayso aniga kaligay rafooya uu yiri wixii waa hal musqul tabartayda ma dhama aniga intii awoodeyda ee intaan dhalinyaraan aan soo aruuriyaa siri aan xanaaneynoya maskaxda caafimaadkii mar horow ka tagay waa la katiinaysan yahay lugaha laga katiinaysan yahay dumar qaar Soomaali dhalinyaro Soomaaliyeed waxaa ku jira oo ku soo waashtay Afrika waxay soo isticmaaleen drugs la yiraahdo sida doctorka uu sheegay tik ninkii tik awo pik asna qaa pik ilkana ma day dhulka qodobka afaraad xubintii ciyaaraha siyaasadda waxaan idin haynaa viva oo xidigo caan ah ka mamnuucday aqalka sare viva oo xidigo caan ah ka mamnuucday aqalka sare ee Soomaaliya iyo garsooraha caalamiga ee Gabra ayaa dhexdhexaadiyay kulankii derbi mudug abo boska ayaa sigana noo daadihinayo waa inoo diyaar qodobka shanaad iyo eegayaal rajada musharaxiinta Bolona di Oro oo Jibriil iyo Sheekh Shariif saadaalintooda waxaa asigana diyaar u ah isla boska iyo lulshilo ayadana waa inoo diyaar qodobka lixaad waa sheekadii ahayd kalamaan ilaahu isku maan naga yeel ayadana waa inoogu diyaar qodobka torowaad
خربك هي تروات كن تروى بقول ترواتك يتروى يعملوا خربك تروات wargeysyada iyo waxay qoraan oo nabarka shaato alaaba nabarka shaato oo la sharxi leeyahay oo mayhaanay markii xaaji banaadir abwaanka noo soo jeediyo eegayaal mar lamaad agni akhriyo qodobadii wararka ama warka faaliyaha qaranka nambarka koowaad ama qodobka koowaad maamulka gobolka banaadir ayaa gabi ahaanba ama wuxuu baabi'iyey astaantii taariikhda Soomaaliya qayb ka mid ah asigoo masaajidkii 4 rukunka ee 771 sano ayuu dhisnay masaajidka 4 rukunka waa 771 sano ayuu dhisnay gobolka banaadir waa dumiyey asigoo dib u cusbooneysiiyey kadibna sameeyey xaflad lagu furayo masaajidkii 701 sano dhisnay ee la cusbooneysiiyey inkastoo la rabay meelaha taariikhiga ah inay tahay lama taabtaan waxaa loo baahnay ama waxaa fiicneed kulay hadda gamuun farka baxdi gaarasha male laakiin meeshiisa asoo ku yaalo ala rabay Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale inaas meeshiisa le ku naasnaasho oo ku toosiyo waayo meelahan oo kale wadan walba waa ku yaalaan meela qadiimi ah oo ay ku faanaan sida dawladaha muslimka ee haday noo imaadaan meelaha aan gey lahayn oo aan tusi lahayn oo dhihi lahayn 771 sano oo dhisan yahay masaajidkan laakiin hadda cuseeb waaye markaa yeelayaan lama sano wax dhisan leh asu eg yahay 770 sano mala dhihi kara hadda dad badanna waa ka tacsiyeeyeen arintaas oo ay ka mid yihiin dad khubaraa dad aqoon yahane dad wadanka muddo badan fara badan waqti fara badan soo joogi waxaana noo soo diyaariyey oo soo diyaariyey hadda waa abaha ku soo dhawaaw أوه داودي المانتا وحكالنا ميدين هايو وحا اكتهين مساجد كأربع ركن او مساجد قديمة تاريخ ضدك الصوماليات iyo meel walba ay ka joogan tuuli xaafad magaalo meel aad ay u yaqaanin asahay masaajidka 4 rukun iyadoo taas ay jirtay masaajidkii zamaanahanba waa iska yaali qubtii qacdi dhiciisi masaajidka malataawani ilaa waxa way xasuus iyo taariikh oo qadiimi shacabka Soomaaliyeed dhamaantooda ay ilaashadaan وبعدين واحد عدي ديبوديسكا ودنك كالصعدة معمولك قبل كبنادر أسلنا كوضع أنا الصوبي مساجد كأربع ركن ديبوهاوين إن لو صوبي أو لسه أي دمعين معمولك قبل كبنادر لكن سأوه مشاس ملقى فيرسنين وحاكو هوز جرتي قصارة كلا أون لأوغين أو اسمها بكمهين سنة خسارة داوديال وحكلا معها ودن كست أدونك وحسلية تاريخ حسوس طالة سيد محا عبد الله إسرائيل أوكلا 4 ركن وعرفتين واشنطن كم سنمك أو قعنت تاجايو الوكسا نيويورك إنجليزك وحلوكسا ساعدة وميل كست وحيلة علامة naftirkooda maamulka gobolka banaadir waxay isku maleeyaan inay wax qabteen masaajidkaasna wax fiican ay suubiyeen masaajid ay ka dhigeen horta waa suubiyeen laakiin waxay dabar jareen ama hilfaha ay u laabeen ama geedka xididkiisa dhulkaba ay ka siibeen xasuustii iyo taariikhdii odayaashii Soomaaliyeed maamooyinkii waqtigaas jooga jiray 4 rukun waxaa la sheegay in 4 qof ay ku duka jirto waa dareemi kartiin waqtigaas dhisnay masaajidka in ay waqti hore oo qadiimi ah isla masaajidka maadaama la dhisay maamulkana gobolka banaadir as oo haysta in wax qabtay wax ma qabanine wax suubi xasuustii taariikhdii kulli jilaafas u dhigay dhulkaas dibir dhaqab afka baxaadka loo geliyay masaajidkii waa la dhisay baa la leeyahay hadda Soomaan xal waxaad ka qayb gasheen waa la dhisay dib loo dhisay dib looma dhisine waa la dumiyay ee leeyahay anigu taariikhdii dadkan iyo dalkan iyo ummadan iyo islaamka
ee Soomaaliya ayaa la dumiyay oo waxa weeyaan 770 sano dhisma jiray oo intii la burburiyay dib loo dhisay mutuleel laga dhigay dib loo furayo waa khasaare weyn oo ummadda iyo dadka iyo taariikhdeeda ah waxaana la yiri malmaluuda safiidaanka haddii micnaha qofka aqoon as u leheenin meesha as dhisaayo iyo meesha as baabi'inayo waxa baxaayo iyo waxa soo gelayo haddii aqoon saas u weyn as u leheenin run ahaantii eedda ma la saari karo waayo haddii qof as joogi lahay maanta oo waqtigaas joogi oo odayaashii hore ka mid ee gobolka Banaadir as joogi lahay arrintaa ma aqbali lahayn intii wax la baduujinin ka hor oo taariikh la duminin oo taariikh xididaha loo siibin oo bafalo soo jaa ka dhicin waxaa la rabaa inay weydiisin dadka niga aqoon badan taariikhyaasha soo jireenka ahay abaha Universal TV Faaliyaha Qaranka Muqdisho eegayaal qodobka labaad aqalka sare ayaa maamul goboleedyada aqalka sare waa soo dhiseen iyadoo maamul walba uu soo dirsaday difaac weyn ama qofkii uu isdhihi lahay dadka ninkan waa uu indha gaduudi karaa waawiska uu yaqaanaa si loo waramaas kasaa oratora waaye gobol balba qofkiis islaahay waa isbaari gobolka waa isfatishi aawi jimcaale aawi maxamuud aawi waxa aawi kan aawi geedi aawi yuusuf aawi heblow aawi kan waraa kana khatar eya inda gaduudiska adaa kuran sabax okay nin walba oo khudbeenayo dadka la soo diri waxaas ku khudbeeya wuxuuna sheegaa in maamulkiisa aan lagu xadgudbi karin uuna difaacayo asigoo weliba indhaha shidahayo gobol walba warkaasi waxaa inoo haya abukar jaajumo ayaa soo diyaariyey daawasho wacan abukar soo dhawaaw sidaad la socotaanba cayaaraha adduunka markii la qabahayo kooxyaalka qaarkood Brazil taa waxay dhaan anaga Pele inaan keensanaa fiican maya waxaa fiican Matios wax la dhihi jiray hadda waxaa la keenay aqalka sare Soomaali in la suka la xushtaan ku dhay ninba ninkiis u khatar yahay in asbeeshiis ka soo dhaxushta ama maamulkiisa waxaad arkaysaa sida maamulka Jubbaland waxay soo saarteen nin khatar oo magaciis la dhaay Fartaag abo ilaahu fartama nagu soo taago Fartaag markii aswarma waxa la isdooya aniga danta Jubbaland waa inaan hormariyaa aan guusheeda wax walba ka hor imaan doon inaan ka hor istaag ayaan diyaar u ahay malaga maqlooyo danta Soomaaliyan qaba maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa u qaatay aqalka sare inuu yahay nin waliba qadiyada ugu soo baxda ama go'aanka ugu soo baxay inuu yahay mid asaga oo maamulkiisa ku difaacanayo saddex maamul ayaa hadeer waxay kala yihiin saddexdaas maamul Jubbaland Galmudug iyo Puntland oo soo saftay saddex calintoor oo qatar dhaliyaan oo laga yaabay oo kala saddexdaasi Faroole Fartaag ina qaybdiid isla mar ahaantaasi siyaasadda ay ka hadlayaan waxay tahay mid waliba wuxuu leeyahay maamulkeegi sare ayaan u qaadayaa midna lagama haayo inuu ka hadla danta Soomaaliyeed mar ay shir ka hadleen maamuladaas qaar ka mid ah waxay dhaheen sida tan waxaan noqon doonaa ergeyga danaha Jubbaland u fadhiya dawladda federaalka waxaan noqon doonaa cidda ka shaqeysa maslaxada iyo danta Jubbaland oo dawladda federaalka waxaan taageerayaa qodob kasta oo dastuuri ah una adeegayo xuquuqda Jubbaland oo dastuurka ah ilaa waxa la isku dilayo oo meesha lagu diraayo anaga awoodaan u sameeyaan socono dastuurka baa kooka ah waxaan ka hortagi doonaa hindisa sharciyeed kaste oo ka soo horjooga maslaxada Jubbaland in xiriirka dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedka mid wanaagsan oo meel heer sare ah gaarsiiya u taagan saacad kasta har iyo habeen u dhafri doona u soo jeedi doona u saqi doona saacad kasta wax ka qabadkiisa
in baarlamaanka jubbaland maanta waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu higsanayaan ogahay nin u taagnaan doona saacad kasta howlihiisa oo aniga haddaan ka mid ahay waxa loo dirsanayo waa xuquuqdii ay dowlad goboleedkan haatan aan hor fadhina baarlamaankeedii iyo guddoonkeedii iyo shacabkeedii na dhegeysanaya dal iyo dad naga dhegeysanaya wixii xaq u lahayd soo dhicinteedii way horta waxaan matali doonaa hadduu ilahay raado balse waxaa awoodda keliya la saaray in la iloobay calankeenin in dad dan gaar sita in howlahoodii loo fuliyo oo la buubuuniyo isla mar ahaantaas loo gogol xaaro siday kaga hadlahaan dantooda gaarka ah ayagoo maamuladaas u qaatay aan ku soo laabtay saddexdaasi maamul inay dantooda keliya saddexdaasi ay soo saarteen inay difaacaan ayagan isla mar ahaantaasi ku dhawaaqay inay nin walba maamulkiisa uu dhowranayo halgan gaar oo ugu jiro oo balse uusan ugu jirin danta Soomaaliyeed ee guud waxaana kaaga daliil ah Soomaaliya haddaan dan guud ay xukuumadeyna iyo maamuladeenaba ay danaynayaan waxaa la xusi lahaa calankeenii buluuga astaantiisan u ahayd xidig cad dhaxda ugu taalo calaamadiisana tahay cid cirkoon caad lahayn aan maalin la xusin iyagoo siyaasadda ay kacsan tahay waxaa soo kordhayo cudurka xagga dhimirka qaarkood waxaaba keena ya isla hadalkaas xagga siyaasadda keena dad badanaaba siyaasadda ku waashtay kursigayba ku waashteen dhimirkaa laga galay si kursi lay ugu waalahayeen kursiyo aan waa ku dacweey meel walba adduunku waa ka dacweey xaafadyaasha waa laga ogyahay gobolada waa laga ogyahay degmooyinka waa laga ogyahay wadamadan diriska waa laga ogyahay kuwa naga dheer waa laga ogyahay kuwa naga fog xataa waa laga ogyahay kursiyo inaan ku dacweey lagu gaagaabyaw kursiyo madax balaarow dadka qaar jinniyaad ku ridi dhalinyaro badan oo Soomaaliya jinni aad ku ridi jinni dad waaweynad jinni ku ridi hal ahaas qof walba waxaas leeyahay kursigaan buushka ay ku fadhiiso kursigaan loo roorooyo 20 carbad yaa hoos ka soo geliya 20 carbad oo number 20 ee inta dhan kii fadhiistaba juq kan camal nin rawa male kan camal mujadiin nin rawa male abu buush al rawa والله بالله دان يرى بدنا والتي حق دميركا كعافي ما درن أنك وحن قيمنا مالنتا فردك أدونك مالنتا حنتا أدونك مالنتا الجبسك أدونك أيدسك المهير الله كنيعة وحلقة تلالا جذيعه الدواشة حبك هيديك waxaa laga talaalaa dangawiiska wiilasheena dhimirka wiilasheena waalan wiilasheena muwaadiniinta ah ee xagga dhimirka laga galayna guryaha lagu xirxiraa guriga geedaa ku dhex yaalaa kooko lugtaa laga xiraa magaciisa hoosaas jiraa jiniga maxaa afka maskaxda maska baxaa jiniga qofkii waalnaa ee maskaxda jugd maxaa keenaa waxaa keenaa wuxuu arki karaa qof in hortiisa lagu dili wuxuu arki karaa madfac qof kala gooyay wuxuu arki karaa dhibaatooyin fara badan annagana guryahan ku xiranaa waa tuuriyeenaa jinoole waa tuuriyeenaa faradhaqana waa qiimeenaa iyo hindhiska iyo iljibiskana waa qiimeenaa maalinta faradhaqa adduunka wiilasheenana waa baaba'san yihiin qaar tahriibay ku baaba'een yaxaasaa ka dhargi yaxaasay dhiikaab casumeenbe korkooday ku casumeen qaar waxay casumeen dhakhaatiirta xibnahooday ku casumeen keliyihii iyo beerkiyaa lagala baxooyaa iyo sambabkii qaar bacaaday bacaada casumi waa duugooya iyo konoolas duugooya qaarkii kalena waa waashteen dhimirkay la'yihiin annagana siyaasad iyo kursiyaan ku xarbiyoynaa galmudug gaalkacyo dadaa dhibaataysan rafaadsan geedaha hoostooda gaajo iyo haraad iyo baahi ku diloyso wax ka warqaba ma leh madaxda ayaga keliya isku jeedo kismaayo afmadow dad baa ku baaba'san ku gaajeysan
abaar ku haysaa abaar ku habsatay 5 bil 6 bil roobna ma soo dhawaa la leeyahay yaa u maqan aabi ganacsatadii Soomaaliyeed aabi maalqabeentii Soomaaliyeed aabi waxa dibadda jiro oo lacagta intaan sana aruurinay siyaasadda ku mashquulni kursiyan ku mashquulni gormay good doorashada dhacaysa aan leenahay yaa kori doono yaa madaxweyne noqon doono yaa ra'iisul wasaare laga dhigooya yaa jini qawaa male yaa baaba'san male yaa oon iyo haraad u dhimanooya male meeqaa guryahooda ka qaxdi male waalidii dhimarka waa badati faaliyaha qaranka wuxuu booqasho ku tagay دكتور آذن حرنتيسا عصبلة منتل عسبيتالا وحان كتغني بوغشو ميلاها ديب كجيرا واتقنا ومدى الصوماليات ماشي كنبتوتو واتقنا دكتور آذن وحو قعنتكو هايات على يرا وفرا بدن او حقا دميركا لغا هايستو دمر باكو جيرا دمر اد مغنا ال خدنا عيد كورميرتا ماله دولة هنقطو جنعسته هنقطو تاجر هنقطو نين والبا لعق بونش عمل صهايا بونشو هي هذا بونش عمل يلعق وهايا ميقا حوالد ميقا وحاجرو hablaha meesha ku jiro maskaxda loogu jiro iyo wiilasha waa wiilasheena Soomaaliyeed war maxuu ku tari bari lacag lagu imtixaamayo oo bari ilaahay kula xisaabtamayo shilinkaaga maxaa ku soo bixisay irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa ya leeri dictor aadan dhalinyarada oo gacanta ku hayo qofkii tagay caloosha ku gudoomay waxaana inoo soo diyaarisay wariyaheena ama warisadeena Aamina Macow Cabdulle bal daawasho wacan ninka dhalinyarada ee wadanka ku waashti daawasho wacan marka ugu horeyso anoo idin kala saarayo waxa lagu jiraa xilligii siyaasadda Soomaaliyeed saameynta badan ay lahayd maskaxda dadkana waxa mashquuliyay heerka siyaasadeed ee ka socota Soomaaliya waxaana soo badanaya cudurka la yiraahdo mitilka ama waalida wuxuu faaliyaha qaranka u booqday isbitaal ay ku jiraan dadka dhimirkooda ay saamaysay siyaasadda qaarkoodna waxa aan ka wareysanay xaaladahooda waxa ayna dhaheen sida tan all I'm some elbowed to come sit feel moment related Abdi Karim he only nothing bomb this one form ida radia Redmond I dumped for void studio number 3 complete وماشي هذه لخان لي بلو اشياء انواع كثيره استعمل سيجار قات حشيش خمر حبوب لخان ننصح شبان واولاد لا يستعمل هذه الاشياء بلوى اذا كان يستعمل اشياء بلوى ضروري من مهم ضروري يستعمل سيجار قات magacaaga waxaa la yiraahdaa lixle maxamed macalin xudiin aan ku magac dheerahay lixle laga yaqaan ganacsade suuqa bakaaraha aan ahay markii la keenay ilaa haddan fiicanahay 4 bilood 5 bilood aan maraa marka caafimaadkayga okay waaye sariir ma leh mas'uul ma leh biyo cariiri waaye fahant ya waxaan jeclahay sida aan ku jiro dhalinyarada qaadka cunto hadda in iska dhaafaan wax faa'iido ma lahan hadda ani waxa daaweeyay walaalkay ay soo daaweeyay oo meesha igu Dr. Aadan ila Turkiga asa daaweeyay waliba waxa la gudoonsiiyay dadka qaarkiis oo dhimirka la waxyaabo agabyo kamid ah laakiin kuwani waa qoon cusub oo wali waxba aan la gudoonsin dhaqaatiirta halka ku sugan ayaan waxaan wareysanay cudurrada saameeyay dadkan halkan jiifo bal waxa ay yihiin in ay noo sheegaan ma siyaasadba ma nooc kala bal waxay yihiin balna la daawada waan awoodi karin bukaan ku jira tiradooda marka aragtaan iyo musqulaha ay leeyihiin difference weyn u dhaxeeyo waxay u baahan yihiin in musqulaha loo kordhiyo jiifka in loo bedelo in hay'ad dawlad la helo kaalmo gacan bini'aadan saas u sii buuxiso maahan tasiilaadka aan ka qaadno waa tasiilaad aad u yar ma kaafin karto daawo raashin iyo jiif iyo in musqulo loogu qado ma kaafin karto sida aan ognahay waalidu kuma aysa sinna ama kuma eka dadka masaakiinta ama dadka ducuufyada ah kuma sinna
waxaan ognahay in ay waalidu ay keeni karto siyaasadda dadka ku mashquulsan waxyaabaha kale weliba ay maskaxdooda aad u shaqaynayso dadkaas waxaan rajaynaynaa dadka waalidaas ku sugan in ilaahay soo caafiyo waayo waalina ilaaha keena samaanna ilaaha keeno wax walbaba ilaaha keena laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu ka qaado cudurka haya waxaan kaloon u rajaynaynaa in wax loo qabto oo loo gurmado oo wax allaale wixii lagu tari karana lagu taro aamino maco cabdulle faaliyaha qaranka universal TV muqdisho eegayaal ilaa foolku taala maxaa aragteen wax yar ma yaalaa meeshaas ha la caawino doctor aadan ha la caawino intiiba awoodo intiiba min istidaac intiiba oo wallaahi awoodo ha la caawino intaas walaalow naga haaya ha la caawino ninkaas masaakiinka doctorka iikaas oo ay kaadi waa aragteen waa caatoobi soo dhan cisbitaalka markiis furay waa fursanay doctorka waa xoosnay doctor aadan ha la caawino adduunkan le walaalo lagu yahay eegayaal qodobka afraad xubintii ciyaaraha siyaasadda waxaana idinkugu haynaa FIFA oo xidigo caan ah ka mamnuucday aqalka sare ee Soomaaliya iyo garsooraha caalamiga ee Gabra ayaa dhexdhexaadiyay kulankii derbi ee Mudug ilaa foolku taala Boska iyo Lulshilo soo dhawaada rifriiga heerka caalami ee Gabre ayaa nasiib u yeeshay inuu xakameeyo kulanka derbi Mudug oo ay u caalwaayeen tiro seeri wadayaal ah oo ka soo jeeda dalka 60 jirkan badi shacabku aysan jecleen ayaa xakameeyay kulankii gaalkacyo isagoona labada dhinac ku qasbay inay qaataan amarka UEFA xilli ay ka dhaga fureysteen xidigaha labada naadi ee Galmudug iyo Puntland kuwaas oo mar kale shalay ciyaaray kulan ka tirsan Olombikada Mudug dhexdhexaadiyaan heerka caalami ayaa inta badan qabta kulamada El Clasico Soomaaliya tiyo ay jirto inuu hore u garsooray kulankii taariikhiga ah ee qof iyo cod ee loogu tanaasulay tartankii 4.5 markaas oo naadiga damajadiid tiro goolal ah kaga adkaadeen kooxda Puntland taageerayaasha Puntland ayaana eedda gooshaasi dusha uga tuuray daafacooda dhexe ee Gaas walow isagu aaminsan yahay in garsoore Gabre uu qayb ka ahaa gooshaas rifriigan oo soo shacbaxay waqtigii Zanawi ayaana caan ku ah in xidigaha Soomaalida uu ku qasbo go'aankiisa u gaarka ah taas oo loo aaneynayo dhisma jireedkiisa oo waxoogaa ka itaalroon kuwa xulkeena 26 sano u kooxda kubadda cagta ee Shabaab ayaa laba xidig ku yeeshay shaxdii ugu fiicneed isbuucan markii bandhig cajiib ay ka sameeyeen horyaalka Soomaaliya iyagoona kulan barbara ku ilaaday gigida Afgooye Stadium ku wajahay kooxda federaalka qaybtii hore ee ciyaarta naadiga Shabaab ayaa heystay inta badan ball positionka ciyaarta iyagoona gameka ku soo galay tareenin ay kala yimaadeen kaymaha taa u saashay in inta badan garoonka iyagu maamulaan maalinkii kooxda federaalka ayaa la arkaya in aanu ku faraxsaneen qaab ciyaareedka liita ee kooxdiisa isagoona qaybtii dambe ee ciyaarta sameeyay bedel wanaagsan oo u suurtageliyay in goolal soo daahay ku barbareeyaan kooxdii martida ee Shabaab kuwa oo aakhirkii ku kala baxay barbaro 3-3 ah maalinka xulka qaranka Soomaaliya Xasan Sheekh oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaab ciyaareedka liita ee kooxda federaalka kuwa oo dhankooda ku doodaya inaanu helin xuquuqdii sportiska oo ay mudnaayeen isqabqabsiga kooxda federaalka ayaa u sahlaya naadiga takbiirta iska hormarisa inay ka soo kacaan kaalinta hoose oo haatan ay kaga jiraan horyaalka dalka iyagoona haatan dib u hantiyay dhowr garoon oo wadna u ah horyaalka dalka Soomaaliya walow dhankooda aysan ku naaloon karayn maadaama xidigaha Mareykanku si kadis ah kubadaha dheere ee tenniska cirka iswajihi karaan daqiiqad walba eegayaal qodobka shanaad rajada musharaxiinta Ballon d'Or oo Jibriil iyo Sheekh Shariif saadaalintooda haya ama saadaalinaya mar labaad ku soo dhawaada Boska iyo Lulshilo ilaa foolku taala dhegna dhafoor
daayarka heerka caalami ee jibriil ibraahim cabdulle oo ka mid ah u tartamayaasha biladda banoona d'ora ayaa sameynaya celcelis farqiga goolasha in ka badan kuwa ka soo horjeeda taa oo naadiga heysata horyaalka dalka ee damajadiid dhowr jeer ku qasabtay in dalabyo uu iska diiday ka gudbiyaan halyeegan reer galbeedka shaxyaqaan ayaana ahaa rugcaddaa in badan soo leelinaya naadiga CRD isagoona markii dambe go'aansaday inuu isu soo taago tartankan heerka caalami safarro uu ku tagay garoomada Garowe Kismaayo Baydhabo iyo dalal badan oo dibadda ah ayuu ku helay taageero xad dhaaf ah shaxdaas ayaana damajadiid u bidhaamisay in soddon jirkaasi uu ka firfircoon yahay kuwa kale ee biladda kursiga kula tartamaya iyagoona mar xitaa diyaar u lahaa inay dhiibaan lacaga malaayiin ah si ay uga taqluusaan hadafkiisa sports xulalka reer galbeedka ayaana si weyn u hadalhaya guusha laacibkan qubarada sportska ayaana aaminsan in sportska maanta uu u baahan yahay dhalin daayar si fursad loo siiyo juniorta kale ee ku haminaya isbedel doonka mustaqbalka eegayaal qodobka lixaad waxaad ku soo dhawaataan sheekadii ahayd kalamaan ilaahay iskumaan hanaga yeelo min ras kamboni ilaa ras caseer ilaahow soomaali meel walboy joogta ilaahow iskumaan naga yeel ilaahow iskumaan naga dhig daawadayaal ilaa fool ku taalaa ku soo dhawaada sheekadii kalamaan oo ay noo jilayaan ama ay noo suubiyeen ama ay noo soo diyaariyeen qaar ka mid ah wariyayaasha faaliyaha qaranka rabbi oo colaada naga jooji rabbi oo raxmaan oo kariim oo adaan ku tuugnay waa kana hadda ani koonfurta gaalka ciyaar deganahay isagana xagga iga jiraabo si kaloon yeelo malaada xoolaha inaan agtiisa geeyo oon xagga geeyo waa la kala ordooyaay agtiisa ay dhaantaa oo maleeyaha meeshiisa ron taleefon inaan ka waco oon hadda wacoon iraaho walaalow agtaadaan wax dhan keenaa waayo si kale ma leh agtiisaan ku fakahaahe isaga aan waco si kale ma leh لما شقي سري شاي وقارات ويوم فريحان بدي حبتي ما ادري مكسوسه وين انا بوصاصه تقع واو تليفون باصور لحي واو وري الله إنه هو يدي ترى كونفورتا قال كعي ودقيه مسلت عنه وقويا دقري هلو ورال سيداي تا إنه هو عافيماتك عرورتي كورد صوم في عند ورال وافي عنها إنه هو caruurtii annaga dhammaanteen waa iska fiicannaha waa ogtaa meesha colaad iyo wax inay jiraan haa marka xoolihii iyo wixii xagga daaqa inta waa iska waa xun yahay daaqe dhinacaasaan rabaa xaggiina inaan keeno wixii dhan xoolihii iyo soo wadoon xaggiina keeno walaalle ina hooyo taa way wanaagsanaan laheeda xoolihii inaad inta soo kaxisod waqooyi keentee balse waxaad ogaataa ina hooyo walaalle dee laba wadan ayaan kala joognay fiisooyin baa loo baahan yahay walaalle ee haddana xoolihiina fiisooyinkoodii magareeshinka ilaa haddeer ma samaynan umalaynay goortay sameeyaan magareeshinka xoolaha fiisooyinkooda walaalle markaas un baan xoolahaagii inta keeni karaa walaalle haa walaalle dee dhulkii waad wada ogtay masiibada dee dagaalka colaadeed wuu iska socdaay bal waxaa yeeshaa goorta u magareeshinka walaalle ma garatay walaalle oy fasaxaan in xoolaha fiisooyin ay u sameeyaan goortaas baad walaale soo kaxen doontaa ina hooyo walaalle haa haye hee maxay tahay fiisada iyo waxaad sheegaysa soo walaalkaa mahay soo hooyaday macaan soo kuma dhalin haa ma annagoo walaalaha fiisi iyo haddana wax layga qaadayaa war waxaas ma jiraan xoolahan iyo waxaan walaalow haa si kaloon ku qanacsanaha male saasaan ku qanacsanahay colaaddana ilaahay ha naga damiyo waxaan iska socdo oo dagaalkan iska socdo oo lagu baaba'ayo dagaal wiil kuma dhashtay wiilaa ku dhintee ilaahay aan ka baryaynaa in colaadda naga joogsato haa ma saasaa hadda waa dhib saas waa dhib hadda aamiin walaalo aamiin ina hooyo aamiin horta masiibadan colaadeed allah naga qaado walaalo taas un baa noo roone anigu waad ogeed markii hore markayga hore waxaan ku soo barbaaray dee anigu waan kaa weynaa soo maa
أنا حد حافدين بان كصاب برباري كونفورت قال كعيا أنت كل صايك هذا ولا اللي مركا أنا وين هذا بان وقويا وسوريكتي حتى واكن معمول إبراي بينو السمايانا وحنا سلام ودنا الصريسين تذكيب واك نجم وربا نجم مغلاينا وحي مغلاينا dad oo shisheeye mooyee anagu hadalkayna ma qaataane waxaan yeelna walaal inahoyo xoolihii dee daaqsinkoodii dhinacan Ethiopian ka dhiganayna walaalle haa saacun ya walaalle haa hagaag waa yahay inaho masiibo olaaday jafku si hadda waa ina hooyadeydii hal meel baan ku dhalanay ana awsata aabihiisii soo koriyey koonfurta gaalkacay halkaan kula soo ekaaday haddana waa miyaan tilaabi karaaba reer baa la dilaya masiibo colaaday alla ku qaadhe shaqaday baan qabsan qadiijo waxa waaye nimankii inaan u tagno waayo dad kasta hadday soo diideen oo qof walba u tagtay ay soo diideen bal annagana dhinaceen hooyooyinka aanu ka soconaaye bal aan soo fiirin annaga wejiyada bal waxayna dhihi doonaa inay soo calool jileecana dhici karta ilaan hooyaan hooyo Soomaalidana sax maana waba hay nawadiga markay warqadiijo war bal arag nimankii aan u soconay oo madaxda noo ahay bal fiiri meeshaan fadhiyana isay kala jeedaan wali bal aan la hadalno hay bal la hadalay war madaxdan doorano bal adduunka ilaahay maamulkii aan dooranay ee galmudug iyo Puntland dhibaatada ka taagan bal fiiriya annagu haween baan nahay hadday yimaadeen aqoon-yahanadii oo wax ka maqli weydeen oo ay yimaadeen culimo u diinki oo aad wax ka maqli weydeen yaa oo maatadii iyo muxuu ahayd idinku dhex dhamaanayso oo sidaas tihiin maxaa nagu sameynaa haween baan nahay war heede war qax baa la taagan yahay oo dadka waa wada qaxeen war heede saan isu dhaama adinka yaaba saan u kala jeediine goorma dad u soo jeesanaysiin oo u talinaysiin bal noo sheega bal dad kala go'a oo kala qaxa ma nihin wiil iyo abtigiis iyo deegaanaan nahay war xabadahan iyo dhibaatadan ma naga joojisiin dadkii dhamay oo mas'uuliyiinta ahay oo madaxda ahay oo waaweynaayo aan dooranaa tihiin maxay tahay dhibaatadan aad nagu wadin maxaa u hadli laadiin ma nala hadashiin warna xushmeeya dadkii kale haddaad diideen annagoo waalidiin ah oo hooyooyin ah oo hable ah oo wax walba ku jiro aan idiin imaanay war bal annagana xushmeeya oo nala hadla kana madax nuuxina kana madax ma nuuxina war dhibaatada ka taagan meesha waa bilcakis waa kibir ku jira ee bilcakis waxay madaxa aysan u dhahay dadka hadalkooda diidayaan haddaaba saan tihiin yaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin sheegayna mideeda kale ummad kale wax waa ka maqli weydeen inuu colaadan ilaahay naga qabto oo dhibaatadan ilaahay naga qabto ilaahan ka baryeena ilaahay bogina burcada isku mariyo annagu wax ka maqlaan way wax ka maqlaan ya ii sheeg wax ka maqlaan hadda maxaa sameeynaa cadaana idin ma cadaanka wax ka dhageysta Soomaali diideene cadaanka wax ka dhageysta Allah ya hadiik warka kaca madxuul isaan yo bis hadda haday laba gaal la soo hadlaan hadalkooda waa maqlaayaan mana qiimaysiino mana la hadashiino arabka maxaan iga dhahay naga keen eegayaal khorobka tarawaad aan joognaa khorobka tarawaad 1900 tarawaryanka waraa khorobka tarawaad waxaan oo akhriyaa waxaa diyaar ku ah wargeysyada iyo waxay soo qoraan oo nabarka shaato meehanin oo akhriyo ee boogay abwaankey maki xaaji banaadir burfuula banaadir baaba xaaji bacda dhuuqso ilaa bari waa socaha magaciisa soo dhawaa walaalkey maki xaaji banaadir mahadsanid cabdimurid dheere ajakis bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada oo xiliyadan oo kale aad uga barateen tv-ga caalamiga universal xafiiskiisa muqdisho xiliyadan oo kale wargeyska maanta aan kusoo qaadanayno barnaamijka wargeysyada daawadayaal waa wargeyska la magac baxay ilaahay xal ha keeno wargeyska ilaahay xal ha keeno boggiisa koowaad wuxuu ku bilaabay waxaan ka dharigsannahay maalmihii ina soo dhaafay amaba muddo 2 usbuuc ku dhowaad in ay
dagaalo ka jireen magaalo madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo duleedkeeda dagaaladaasi oo ku soo aaday xilli ay puntland iyo galmudugba ay u diyaar garoobayaan doorashooyinka inaysan baaqan oo si loogu talagalay ay u dhacaan doorashooyinkiiyoo socda ayay dagaaladiina socdeen xabadihii socdeen madaafiicdii socdeen barakicii uu socday dadkii kala cararaayey oo dhibaatada ay ku sii badanaysay ay socdeen marka taasi waxayna tusaysaa ayuu yidhi qoraha maqaalka ilaaha jooga dadkeena soomaaliyeed inaysan isku baqaynin inaysan isu naxaynin oo xilliga lagu jiro maadaama uu yahayba isaga xilli dadban waxaad moodaaba in dagaalada ay sii socdaanna caadi inay tahay dhinacna doorashooyin inay ka socdaan caadi inay tahay dadkii talada ay ka go-eysay halkii ay colaada ka damin lahaayeen oo baaqyada isdabajoogyada ah oo dhigahooda ku dhacayo ay qiimeen lahaayeen macnaha ay ka doorbideen in aysan danahoodii weynin taasi waxay dhashay ayuu yidhi qoraha maqaalka ilaaha jooga dad badan inay dhibaatoodaan dad badan inay guryahoodii waayaan cidla roob uu ku helo jilaal uu ku helo darxumo ay ku hesho caafimaad xumo uu ku helo gaajo ay ku hesho haraad uu ku helo sidaa darteed allah jooga ayuu yidhi wargeeska oon dayacaynin addoommadiisa laakiinse waxyaabaha aan isqaadi karin in leysku wado in laga fiican yahay ayaad moodaa ayuu yidhi qoraha maqaalka ilaaha jooga sababtoo ah ayuu yidhi qof kasta oo mas-uul ah wuxuu mas-uulka yahay hadduu aaminsan yahayba in su-aalo laga weydi karin allah subxaana wa tacaalana inuu si gaar ah ugu xisaabtamaynin hadduu aaminsan yahayba isagay u taalaa laakiin wuxuu yidhi arrimaha socda arrimo dadka soomaaliyeed farxad gelinaya ma ahan hala joojiyo ayuu yidhi dagaalada ka socda magaalada gaalkacyo ha iswaansadeen ayuu yidhi puntland iyo galmudug maxaa yeelay abtiyow eesimo waaye far iyo faraanti waaye geed iyo xididkiisa waaye madax iyo tintiisa waaye maqaar iyo xaadiisa waaye marka sidaa darteed mar kasta intay dagaal ka socdaa gaalkacyo intay isku haystaa gaalkacyo intay isku dhex ka dhacay gaalkacyo inkastoo meelo badan ay la qabaan saas camal laakiin tan gaalkacyo waxay noqotayba mid iska soo laalaabanayso laba usbuuc ka bacdi bilooyin ka bacdi sanad ka bacdi 2 sano ka bacdi marba waa kaas waxay u baahan tahay si fiican in loo abaaro wadada saxa ah in wadooyinka toosan jidadka saxda ah in laga abaaro oo labada dhinacba puntland iyo galmudug ay u turaan dadkooda ay u turaan degaanadooda ay u turaan shacabkooda adduunyada in laga tegaayo oo wax iska dhow oo shay dhinac le ay tahayna allah subxaana wa tacaala alaa qowlkiisa cadiimka ah kariimka ah noogu caddeeyey sidaa darteed wuxuu yidhi dadka baaqa sida gaarka ah uu u khuseeyo waxaan ka codsanaynaa in ay u turaan dadkooda degaanadooda maamuladooda ay ka cuudubilaystaan xabadda ay ka cuudubilaystaan madfaca ileen dagaal kaara gaari xadkii bilaayada waa dhaafi waxaa isgalaa xadkii khootada dagaal mar haddii iskaara gaaro waa laga cuudubilaystaa
aan iscafino ilaahay khaatimada hanoo suubiyo magaalada gaalkacyo allah hanoo dejiyo gobolka mudug allah hanoo dejiyo dalkoo dhan allah hanoo xasiliyo ayuu kusoo gebagabeeyey qoraha maqaalka ilaaha jooga boggiisa maanta iminkana waxaan gelaynaa qaybtii ahayd wax ka baro suugaanta iyo mahmaahooyinka soomaaliyeed walle duub abwaan baan sitaa qof la diraa maahi walle duub abwaan baan sitaa lay dardari maayo dib in lay barana uma fadhiyo dalkan ka soo jeedo walle duub abwaan baan sitaa lay dardari maayo dib in lay barana uma fadhiyo dalkan ka soo jeedo dareen laashimeed bay igu jira qof la diraa maahi ana isdira dadkan la hadlayaa isla dadkaygii ah deegaankan ka sheekaynayaana waa isla degaankayga saa darteed waxaan odhanayaa ushiyo diirkeeda cabdiweli dagaal lama rabee nabadda doon doona cabdikariim dagaal lama rabee nabadda doon doona puntland dagaal lama rabee nabadda doon doona galmudug dagaal lama rabee nabadda doon doona isdejiya ilaahay ka baqa diriirtan sooyaalka qaabkii looga daawoobil afuro dariiqeeda iscafiya dadkiyo dalka u tura diriirtan sooyaalka qaabkii looga daawoobil afuro dariiqeeda isdejiya dadkiyo dalka u tura diriirtan sooyaalka qaabkii looga daawoobil afuro dariiqeeda dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daawo dad iskaashibuu walax ku yahay nabadda waa daawo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daawo danqashada xalkay qayb ka tahay nabadda waa daawo tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daawo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalkayaga allow noo xasili daa'im baa tahaye dadkayaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye caasimadda inoo deji allow daa'im baa tahaye gobollada inoo deji allow daa'im baa tahaye tuulooyinka inoo deji allow daa'im baa tahaye xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahaye degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye dabkashadan allow naga bakti daa'im baa tahaye colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahaye awaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye mandhar kheer allow noogu deeq daa'im baa tahaye dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahaye dalabkeena noo ful allow daa'im baa tahaye saandooneyna noo yeel allow daa'im baa tahaye ducadeenna ee bow ajiib daa'im baa tahay aamiin iminkana waxaan gelaynaa qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii mahmaha waxaan ka bilaabeynaa kalluundi zabdiiday waa bukaa kalluundi zabdiiday waa bukaa eeg lafdiiday waa xanuunsan yahay shimbirtii buubtin waalan madax aweesay ku degtaa intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada iyo maanta dhinaca farsamada iyo kaamarada waxaa gacan iga siiyey guuleed cabdisalaad khaariye wargeyska waxaa soo diyaariyey ish soo mariyay halkan kasoo jeedinaya anigoo ah maki xaaji banaadir burfuul banaadir baaba xaaji bacdaa dhuuqso anigoo isku duwan waxaan idinku dhaafaynaa nabadiin nool kulanti ammaana allah iyo kulantii dambe oo xiise leh eegayaal daawadayaal waxaa haddana idin salaamayo dhammaan wariyayaasha ama wariyayaasha le kasoo wada faaliyaha qaranka ugu horeen maki xaaji banaadir abwaan maki xaaji banaadir idin salaamayo waxaa idin salaamayaa soo jiran ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay hanoo soo caafiyo ilaahay hanoo soo cafiyo waa abwaan cabdi maxamed jacaf waa xanuunsan yahay ilaahay aan tuugno mar walbo abwaan maxamed weli xaji john oo ku magac dheer abba johnkan waa idin salaama abukar jaajumo waa idin salaama faarax cali wehliye kham waraam sanjawiil waturaab faarax cali wehliyen waa idin salaama abba haa idin salaama cabdi khani triple a idin salaama mamo maxamed cabdullahi yaa idin salaama aamina macuu cabdullah idin salaame amran xaaji jimcaalana gooni ahaana idin salaamay
cabdi khani triple a asna waa idin salaama inta ku jirto kalamaan ayagana waa idin salaamayaan sida jaajumo yare ismaaciil alteza iyo intiiba ka qayb qaadato waa idin salaamayaan waxaa kaloo gooni ahaan ama gaar ahaan ama idin salaamayo waa yarka sanadka duubaha deeyaha diyaariyaha waa faateeyaha foorneeyaha finjilaha waa yarka sanadka jalaqsane guuleed cabdi salaad khaarey waa heer khaarey iyo anigoo ah soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha israacdo fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka ka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeenna farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka